Ambassador-ka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya ayaa waxa uu qoraal ku cabirayo waxa uu qabsoomay iyo danaha ay dawladda Mareykanka ka leedahay Soomaaliya. Qoraalkiisii ayaa sida tan u qornaa: muddo hal sano oo aan ahaa safiirka Mareykanka ee Soomaaliya, waxaan dhawaan soo gabagabeeyay shirar hordhaca oo aan la yeelanay wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya. Waxa kale oo aan la kulmay dhammaan madaxweynayaasha dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya, madaxweynaha Somaliland iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda, xubnaha iyo madaxda baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxaan la wadaagay madaxdan sare hadafyada ugu sarreeya ee dawladda Mareykanka ay ka leedahay Soomaaliya, kuwaasoo si dhow ula socda xaaladda dawladda Soomaaliya ee heer federaal iyo heer dawlad goboleed. Labadeena qaran waxaa ka dhaxeeya dano isbiirsaday. Markii aan ka war helay qorshayaasha hiigsiga ah wasaarad kasta oo federaal ah iyo dawlad goboleed, waxaa kor u kacday kalsoonida aan ku qabo mustaqbalka ifaya ee Soomaaliya. Ujeedada safaaradda Soomaaliya ee Washington ayaa ah horumarinta danaha Soomaaliya. Sidoo kale, ujeedada safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa ah sidii loo horumarin lahaa danaha Mareykanka. Shaqada labadeena safaaradood waxay gacan ka geysanayaan in danaha wadamadeena inta badan ay iswaafaqaan. Mareykanka iyo Soomaaliya waxay iska kaashadaan dadaallo wadajir ah si loo gaaro danaha aan wadaagno. Andre ayaa su'aashan weydiiyay diblomaasi nooca ah ayaan ku dhaqannaa akhristayaasha, isagoo ku jawaabay sida tan: anigoo ah danjiraha Mareykanka, waxaan ahay wakiilka gaarka ee madaxweynaha Mareykanka Joseph Biden ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Tani waa heer madaxweyne to heer madaxweyne. Markii aan la kulmo muwaadiniinta Soomaaliyeed oo aan maqlo aragtidooda, dareenkooda iyo rajadooda, wixii aan ka barto waxaan warbixin ugu gudbiyaa madaxweyne Biden oo ku jira aqalka cad. Aragtiyadaasi waxay ka caawinayaan inaan ogeysiino siyaasadda iyo barnaamijyada ay wado safaaradda Mareykanka ee Muqdisho. Xubnaha kooxda safaaraddeedu waxay matalaan qaybo kala duwan oo dawladda Mareykanka ah. Waxay la shaqeeyaan hay'adaha dhigooda ah ee wasaaradaha kala duwan ee Soomaaliya, heer federaal iyo heer maamul goboleed. Tani waa heer dawlad ka dawlad. Ugu dambeyntii, waxaan la xiriiraa dadka Soomaaliyeed sida fariimaha, wadahadallada aan la yeelano warbaahinta, macallimiinta iyo bulshada rayidka oo ay ku jiraan kuwa darafyada bulshada. Waxaan sii ballaarinaa fahamka sheekooyinka Soomaaliya iyo sheekooyinka Mareykanka, isweydaarsiga iyo barnaamijyada online-ka. Waxaan taageernaa ganacsatada, ardayda luqadda Ingiriiska, hogaamiyeyaasha bulshada iyo suxufiyiinta si ay u horumariyaan xirfadooda. Tani waa heerka diblomaasiyadda ee u dhaxaysa qof ka qof. Waxaa inta badan la weydiiyaa xiriirka aan la leeyahay dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland. Aniga iyo kooxdaydu waxaan sii wadnaa xiriirka mid kasta oo ka mid ah dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland ka hor inta aynan ka fulin barnaamijyada meel kasta oo Soomaaliya ka mid ah, hadday tahay arrimaha amniga, arrimaha bini'aadanimada, horumarinta dhaqaalaha ama adeegyada dawladda. Waxaan marka hore ogeysiinaa dawladda federaalka ee Soomaaliya. Xafiiskayga waxaan ku haystaa nuqulada labada dukumiinti, kuwaasoo kala ah dastuurka ku-meel gaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo Axdiga Vienna ee xiriirka diblomaasiyadeed. Waxaan la tashtaa dukumiintiyadan si aan u hubsanno in shaqadeenna aan ku horumarinayno danaha aan wadaagno mid aan xadgudub ahayn oo u fulinayo siday ugu habboon tahay. Marka madaxda iyo hay-adaha Soomaaliyeed ay ku heshiiyaan dastuur kama dambays ah, markaasi waxaan dib u eegis ku samayn doonaa dukumiintiyadeena mustaqbalka ee isla ujeeddada ah. Haddaba, waa maxay hadafka aan ka leenahay Soomaaliya? Inaan kordhinno amniga Soomaaliya iyo Mareykanka, kor u qaadidda isku xirka amniga ee ciidamada Soomaaliya iyo saaxiibada caalamka, in ciidamada ammaanka Soomaaliya laga caawiyo sidii ay Soomaalida uga ilaalin lahaayeen weerarada argagixisada, kacdoonka iyo dambiyada rabshadaha wata, ka jawaabista baahiyaha bini'aadanimada ee ka jira Soomaaliya iyo taageerada loo dhan yahay, kobac adkaysi leh, bixinta gargaar naf lagu badbaadinayo, taageerida dib u habeynta lagu sameynayo barnaamijka deegaan cafinta iyo kobaca dhaqaalaha. In lala shaqeeyo dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada si loo horumariyo nabadda iyadoo loo marayo maamul tayo leh, xoojinta dawladnimada iyo adeegyada bulshada ee bulshooyinka dulman iyo kuwa dhawaan la xoreeyay, in la ballaariyo helitaanka adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada, in la horumariyo xasilooni wax ku aal ah, dawlad dimuqraadiyad ah iyadoo loo marayo dib u heshiisiin iyo dhammaystirka dastuurka Soomaaliya. Waxa aan socdaal ku tagay magaalooyinka Baydhabo, Garowe, Hargeysa, Kismaayo iyo sidoo kale Nairobi iyo Minneapolis. Waxaan maqlay aragtida muwaadiniinta Soomaaliyeed ee noloshooda inta badan ku noolaa dalal kale
iyo aragtida dadka aan weligood ka tagin Soomaaliya. Waxaan dhageystay odayaasha Soomaaliyeed oo ka warramaya waddankooda ka hor burburkii dowladnimo ee 1991 iyo da'yarta Soomaaliyeed ee dhalatay sanado kadib dhacdadaasi. Waxaan dhageystay Soomaali ka hadlaysa aragtiyadooda siyaasadeed oo kala duwan, aragtiyo kala duwan oo ku saabsan qabiil, gobol, hayb qaran, wadaninimo iyo hamiga dalkooda. Dhammaan codadkan kala duwan maxay ka siman yihiin? Waxay rabaan in Soomaaliya ay horay u socoto, waxayna doonayaan in Mareykanku uu caawiyo. Aniga iyo asxaabtayda waxaan aad ula dhacsanahay horumar ay dadka Soomaaliyeed iyo madaxdooda heer federaal iyo heer dowlad goboleed ay gaareen bilihii la soo dhaafay si loo horumariyo himilooyinka aan wadaagno. waxaan ballan qaadaynaa inaan sii wadno taageeradeena oo aan ka ciyaarno doorkeena iskaashiga Mareykanka iyo Soomaaliya. waqtigan waa waqti rajo weyn laga qabo in Soomaaliya ay si buuxda u soo noolaato. waxaan ixtiraamayaa firfircoonida tamarta leh, go'aan qaadashada sifada dhaqanka Soomaaliyeed. waxaan u mahadcelinayaa dhammaan asxaabtayda Soomaaliyeed kuwaasoo wax badan i baray intii aan ku sugnaa Soomaaliya.